صفوان بن أمية أي عمر بن وهب نك اللي ورجري أيكم مركا لبدود ومشركين ومكة أي جوغان وزمن النبي عليه الصلاة والسلام وقعدي دقال كي بدر بالغا سو نقدي تضباطن قالدنا waa laga laayay toddobaatan gaalo ana nabigu waa qafasho uu xiro uu qaatay labadanna waa qaraabo Umar ibn Wahab inankiisii wuxuu ku jira toddobaatan kala xiray Madiina loo qaatay buu ku jira xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar ibn Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay to aanu adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeeladan ku tagana anu maanta waan haystaayo inankayga baa iga xidhan intu sabaan oran lahaaye Muhammad aniga soo kharijin lahaa buudi Safwan bin Umayya ayaa ka faa'iideysto yiri ma sameyn kartaa haa waan sameyn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raacabu kay waa labadoodu kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysana waa taqaanaan la 400 kilometer وصار سعودي آلات كان زمن كان إمك أسكتور طور إنه فيسبوك يا واتساب يا بلايا جن مجري زمن كاس وصار سعودي مدينة وصار قال عمر بن وهب سوى سيفتي سجاني قارن مر عليه مركو عمر بن الخطاب بايري وعمر بن وهب ها شيطان من شياطين قريش ويانه سيفتي نواكا جاني قارن يا قرط كسيتي أردو النبي إلى علي يقول النبي إنه أجوج النبي كإلى علي صلى الله عليه وسلم شرق مو سعودي خير ما سعودي markaasuu ayaa rasuulka loo sheegay lagu yiri nabi Allah Umar ibn Wahab soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa uu nabigu yiri soo galiya loo soo galiyay xaadu timidey buu ka yiri waxaan u imiday inankaygi oo asiir oo gacantiina ku jiro inaka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameeysan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu yiri oo ka wada hadalno markaa uu nabigu ku yiri seeftana qoorta ku sidata maxay tahay hada wuxuu qabbaha Allah buu ilaahay haba duleeyay seeftana ma waxbay noo tartay buu dagaalkii badar iyadoo tan wadano Saudi 7 naga laayay 7 naga soo qafashay naga soo xidhay ma markaa uu nabigu ku yiri fariisa buu yiri arrinka ma harikaad u socoto aniga kaaga warramay oo fariista adiga Safwan bin Umayya saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fariisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri hadan heli lahaa deynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aan u dhiibo iga kafiil noqoto hadan heli lahaa Madiina intoon tagaan Muhammad aan kaga soo takhalusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna deynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaad u socotay kaabo haaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartid ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga waramay Allah baa uga waramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tiri baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa Allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waa ku rumayn adigane ilaahayna waa rumayn tawxiidka ay qirbu ku yiri halkii buu ku qiri ilaahay marka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaadan in wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisa u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa taala inuu adiga wax ku tuso kan u baahan ma
إلهي سقى كتل يكونك تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب امرأة أبي لهب أيها النبي نؤتي مدى عليه الصلاة والسلام يضع دقح سدته أبي بكر بيوتي مدى وهل كان فردية رسولكنا وقف فردية صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا رسولك لنا عسكو هيان مركز إلى ذا أبو بكر صاحبك ما نو إليه النار بتكون دميني دونته وقبل يجي يقول صدري قبل بقرآن كوايس تاموت أبو بكر رسولك إيجا هذا ما أنت محمد أنا وأنرك لها بيتري بقى حيسا نستوى مدحا بشكسين لها بيتري مركز كم نقطب أبو بكر نبي ساوي يا رسول الله ما ينكو أركين ما أنا أرجع يقول أركي لهيد بإلهك قادر يقول إنه هيبل محو حكو أركا إيش وحكو أركا من لنا هاي ما يأمرك إلهي وحكو أركا دكتو وحكو مغلام ما دكتو أمرك إلهي بهو بانتاين مقشو لوك تادو إنه سعوت إلهي أمرك يسيو باهنتا خالق وإلهي marka ilaahay macrifadiisu waa waajib qof kasto muslim ah laga raba ilaahay inuu dhabu garto tasarrufaadka caalamka ilaahay bas kale marka shayga ugu horeeya bini aadanka lagu waajibi waa ilaahay macrifadiisa diintuna nasiixadeedu halkaas ay ka bilaabanta lillah kun abdan lillah ilaahay adoonkiisa oo dhaba noqo خلاصة القرآن مركا علماء كور رمين خلاصة الأديان وحلي وحي الدين سماذا كالسود دكتي أردن خلاصة دي وحا لقد القرآن كريم كا قرآن كريم كي بلا سو خلاصة سورة الفاتحة خلاصة دي قرآن كاللقد سورة الفاتحة يلا خلاصة لبدا عوض علماء سكو كانان إياك نعبد وإياك نستعين خلاص قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إلهي جل وعلا واك قرآن كلها صلاة وانو قيبية أنجي أدونك أياك لقيب سني وصلاة وسورة الفاتحة مقعيق ويان سورة الفاتحة هذا صلاة بالليلة فاتحة الليلة القرآن بالليلة سبع المثاني بالليلة سورة داس وسورة ونبي قولي والذي نفس محمد بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها إله محمد أبو ريما كدارته سورة داس سورة لمدة إنجيل لكم يسودقين فرقانكم تورانكم يسودقين قرآن كريم كان سورة لمدكم اجرتم رسولكم يري علامة ابن قيم الجوزي رحمه الله وحيري قرآن كردن بمركان اغني وحو شرح يا وسورة فاتحة سورة فاتحة وحي يدنا كسو أرتي إياك نعبد وإياك نستعين وأمركم أضنكم أوليه بسم الله الرحمن الرحيم مركات رادد الحمد لله رب العالمين مركو أضنكم يرادو إلهي بالحمدني عبدي أضونك يجيب يقوم مهديي الرحمن الرحيم مركات رادنا أثنى علي عبد إلهي بالأضونك يجيب أماني مالك يوم الدين مركات رادنا مجدني عبدي أضونك يجيب ويني إياك نعبد وإياك نستعين مركات رادنا إلهي بال هذا بيني وبين عبدي تاسياني أضونك نقد حيسا الحمد لله رب العالمين مركات ري حمدني عبدي إلهي بالأضونك يجيب حمدي الرحمن الرحيم مركات رادنا الرحمن والله الرحمة ديسو أدونك أنت اللي جوكتي خلق قردن أي وذا قاعدين ويان الرحيم أن حريستي سبنك قيامنا مؤمنين تخاصك وقدقوا ويان أثنى علي عبدي أدونك وي أما نبي الله إليه هي مالك يوم الدين مركات رادنا يوم الدين ويوم البعث والنشور مالك إلهي ملكك يطلد إسكالها يوم مركات رادنا وحو الله إليه هي مجدني عبدي أدونك ويني إياك نعبد وإياك نستعين مركات رادنا إلهي باكل هذا بيني وبين عبدي تاسياني أدونك نقد حيسا وهاقاق أدقون أي عبد وأدونك يجي نبي إنقو أنا كنا كلمة هاي جرجارك يقول دا سدان دونا ييل سدان دونا سن أنا كويلي سرت نلاش هالكابي كجرتا دو فكر رادين
qaxootiha ka raadin hay'ad loo shaqo tagana ha ka raadin wadankeena uga shaqo fiican waa ka hay'ad u shaqo taga hay'ad buu hebel la shaqeeyo hay'ad wadagii islaantii heblaayo labadoodii wiil jaamacadda qalin jabiyeen hay'ad baa markiiba madaxa qaadatay madaxa hore hay'adu ka qaadatay يا مسكين عبد الله بن حذافة رضي الله عنه markii boqorkii Ruum soo xiray waxa loo bandhigay laba shay in boqortooyada Ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo صحابي جليلة تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام قسيس كيف أقول عيدا كنك وتا والنبي محمد أرضي ريسي أرضي كمدا حنقدلين نصرانية دو بندق وحلي وحو دين تاكو دور سكرنا هلا صيو سن الصارة إسلام كأوغس عطا وسد عن سبيل الله يقول نقضو لكن وحينا كور قبل نبي محمد صحابة ديسو إيمان كوغو عرب كما الدولي الله إيمان كوغو قلبي كو دولي الله الكو دولي الله قلبك وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إيمانك الصحابة ماها من عرب كدولي الله من ما أدوية لدافسن كرماها ومن قلبي كوغو إيمانكو فريستي وين إلهي كو تعلق سن هو يرى بقرك ما كلها تاين النصرانية دا سوا قلي boqortooyadeedana kala barkeed baan ku siinay markaas uu qoslay wuxuu boqortooyadaada oo dhameestiran oo waxba laga reebin iyo boqortooyada carabi ay haysato hadii halka la ii dhigo oo la igu yiraahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallahi inaan yeelin buu kaydi wallahi ma facaltu buu darfata ayn diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxa soo mulkiyeena qaado ma yeelayo buu boqorkii baa ku yiri waan ku dilaynaa دواب النيح حدنا هاي بودي هذا يدل سر والنيح حدنا إحدى الحسنيين بيسوق يعني يكو إما النصر وإما الشهادة إما إن يقول هلان أو تمكين هلان وإله جرجار كيس الله بلن قاد عنده كو أركان إما إن الشهادة هلان فردوس يتجان لو شهاد بيد وحقوق ما أركان وحال السماء مركب بقر كي أمر روحه كبحيي دريوا وين وصليد أو كركرايا ayaa hortoodii la keenay laba nin oo muslimiintii inta la soo qaado isaguna arkaayo ayaa la diinta islaamka ka noqda kama noqon nabi ilaaleen markaas la qabto labadii nin basda loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dhari saliido karkaraya loogu tuuray ka warrama subhanallah isagii baa markaa la dul keenay oo xidhan kan noqo diinta islaamka oo nasraaniyada qaado markaas uu ma qaadanayo lilma ka daadatay markaas boqorkii lagu yiri hadduu cabsoodayo waxaan u maleynayaa inuu gaaloobayo hadda markaas loo bandhigay nasraaniyadii oo lahay gaalow markaas uu ma gaaloobayo damaxal loo idaa lagu yiri markii dabka lagu dul keenay dheriga karkaraya hal nafba igu jirta way iga baxaysaa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala in la tirin lahaa oo intaasoo ruuxa la igu abuuri lahaa oo mid walba intoo mar halka la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyoonan haysan oo ka ooyaya buu kaydi naf kaliya maaha kuma yalna fa in la igu abuuri lahaa oo mid walba halka intoo la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaninayaa mana haysta buu kaydi boqorkii baa yidhi kan dilkiis wax noo tari maaye haska sii dayno waayay sii daaya ma kula tahay buu kaydi madaxa inaad iga dhunkan وانا كسي دينه مركز المقال برمض حقدهم كذا سجي بس لا شورست شرط بو كخدو وخدي هدي مسلمين تا الى خدن ادي سي دينه سيدها وان كادون كان هدي كلا كادون كان ما يبو كيدي مركز وحاجه يقدمكو مركز المقال برمض حقدهم كذا انا اصحاب النبي محمد كمدا رجع هو سي دينه يسوما هنا وكدون كان الا برير بجهاد بن كسو علينا كلا بحمهن عجيب أصحاب الرسول رئيس وقالان عمر بن الخطاب سو دhoweeyay inuu gaal madaxa ka soo dhunkada ayaa u sheegay baa leeyo ragii la socday baa Umar ku yiri Abdullah ibn Hudaafa ha dhunkano ha salaamino ha soo dhaweyn waayo gaal buu madaxa ka soo dhunkaday inakana hebel dibadu u baxay
hebel hee dibadda u baxay hebel hee hebel hayad buu la shaqeeyaayo iskugu toostay gaal inaad la shaqayso ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan gaalada dhulkooga inaan tagno ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan iyakuna raggii la soo daayay dhunkashada lagu soo daayay baa cumar ku leh gaal buu madaxa ka soo dhunkaday ha salaamin cumar baa yidhi balukaadii ha waraysteen sidee ku dhacday inaad nin gaala madaxa ka dhunkataa wuxuu yidhi iyakaa ku soo daayay buu yidhi si markaa cuqdadii yareeda qalbiga u gashay cumar uga biiye buu yidhi xaqun calaa kulli muslimin an yuqabila ra'sa cabdillaahi bni xudaafata wa ana abda'u bidalika buu yidhi qof kasta oo muslima waxaa xaq ku abuu yidhi cumar in maaragtana cabdillaahi bni xudaafa uu madaxa ka dhunkado anigana ka bilaabaya buu yidhi anigana ka bilaabaya ilaahay bay ku xidhnaayeen islaamnimaday ku xidhnaayeen addoommo waxay noqdeen ilaahay uu iska leeyahay sidii ilaahay doonaya markay yeeleen sida iyakuna ay doonayeen baa ilaahay adduunka u yeelay siday doonayeen